السلام عليكم صاحبي الكسر دواء معك برشاد يعلد محنت كمبيوتر سيكر مقاعي جوا إنجينا عبدالحان عبد الله ما أنت 10 كنا وحنا كوساب سين قيبة كلا أنكوسي عم بقالي دونه كواس وكوساب سن أكسل قيبي سحقة كهرسن عشرات كيوري هدي أفيرنا طبعا تسألان حربنا إن حسوبها جرينو أكسل كبعدين عن أوبريشن كلا دوجن كوسمين for example waxa ugu horeeya waxaan ka dhigi doonaa ID halkan waxaan ka dhigi doonaa employee name tusaalahan shaqaalaha waxaan rabnaa in aan gelino halkan employee name saas markuu noqdo si uu ula kaad halkan tagayna double click aan ku siinayna halkan waxaan ku qoraynaa nationality for example shaqaalaha wuxuu lahaan karaa wadan uu dhashay inta kale wuxuu qaadan karaa salary lacag macaan uu qaadan karaa company uu ka qaadanayo okay so marka daaram inaan kor u qaadno saasaan leenahay koraan u jiideynaa okay ina weyneen haddaan halkaan tagaynaa kabacdi saan ula kaysin halkan double click aan ku siinayna halkan double click aan ku siinayna kana sidoo kale okay halkan ID waxaan leenahay waan ka bilaaweynaa waa badinayna saan ugu badino halkaas qabo click si adoo click tahay hoos u jiid okay marka daarno 1 2 3 ina ka dhigna fill series magaceedii ayaan gelinaynaa halkan oo kale waxaan leenahay for example magaca waxaan leenahay Abdi Kani Hussein nationality waxaan leenahay waa Soomaaliya salary-giisu waa 300 okay 3,000 phone number-kiisa kale halkan waa soo gelin karnaa waxaan leenahay phone yani telefonka uu wato okay marka inaan haddaan rabno in aan salary-gaas wixii soo gala aan lacag currency siina sida casharaadkeena hore soo marnay comma style aan siinayna dollar sign oo siinayna inaan kordhin haddaan u baahanahay intaas aan dooranaynaa iyo kolomada soo socda wixii galaayo waxaan leenahay increase aan increase kan ku dhufanayna kabacdi bold ayaan ka dhigaynaa okay kadib waxaan leenahay halkan waxaan soo gelinaynaa Zahra Hassan Ali Zahra Hassan Ali and for example waa Ethiopian $600 ayay qaadataa telefonka Cabdiqani uu leeyahay kala noqon karaya eber 6 so halkaan oo kala dad tahay Zahra waxay qaadan kartaa waa 6 lambarada saas oo kale caynkaas ay qaadan karaan halkaan hadda tago Aisha Ali Afra halkaan oo kale waxay noqon kartaa India for example saasaan leeyahay lacagta ay qaadato waxaan ka dhigayaa 800 halkan lambarka wuxuu noqon karaa eber 6 lambar ayaa ka maqan okay halkan markaan waxaan soo celinayaa Cabdiqani si aan aragno isbedelka dhacaayo 300 3,000 lambarkiisa waxaan leeyahay 6 waxaan soo koobiyeynayaa lambarkaas koraan soo koobiyeynayaa saa isku ekeysiyo labada lambar waxaan yoolka aan ka leeyahayna gadaal ayaan ka sharxi doonaa okay mar kale haddana waxaan soo celinayaa table-keena Zahra Hassan Ali okay waa Ethiopian lacagta ay qaatana waa 600 lambarkeeduna waa lambarkan Zahra markaan soo koobiyeyna right click copy halkaan tagayna right click paste okay saas marka uu yahay haddaan rabo tusaale ahaan in aan kordhiyo size-kan boldiga ka qaadi karaa haddaan rabo waxaan leeyahay waa kordhinayaa sida ayaan yeeli karaa marka halkan haddaa fiiriyo table-kan employee name shaqaalahayga meeqa qof oo isku ogaya halkan ku jirto Cabdiqani Hussein oo Soomaali ah identity card-kiisa 1 uu yahay iyo Cabdiqani Hussein
oo identity cardkiisu uu yahay for Somalian ah. Cabdiqani Xuseen waa identity cardkiisu waa lambarka afraad waa Somalian, kana waa Cabdiqani Xuseen waa lambarka koowaad Somalian uu yahay. marka qiimaha markuu saan yahay sideen duplicate-ka uga saaraya? dabcan duplicate meesha waa ka muuqdaa. Cabdiqani Xuseen laba goor soo laabtay, Zahran laba goor ay soo laabatay. marka duplicate-ka si aan uga saaro marka ugu horeyso waxaan dooran doonaa qiimaha duplicate-ka muuqda ama gibi ahaan table-ka oo dhan si duplicate-ka aan usoo muujiyay. markaan saa u select gareeyo home tab tagi doonaa, waxaan tagi doonaa styles conditional formatting aan furayaa, highlight cell rules aan tagaya, kabacdi waxaan dooranayaa duplicate values qiimaha soo laabtay soo muuji, kabacdi okay aan leeyahay. dabcan hadda markaa fiirisid waxaa soo laabtay Cabdiqani Xuseen iyo Zahra Xasan Cali iyo Cabdiqani Xuseen mar kale iyo Zahra Xasan Cali mar kale. Caaisha Cali Afrax ma ahane inta kale gibi ahaanba duplication ayay sameeyeen. sidee marka u remove gareynaya? waxaan tagi doonaa data tools, markaan tago data aan tagaya, data tools aan kasii tagaya, waxaan leeyahay remove duplicates. marka hadda waa u bixi doonaa duplicate-ka qiimaha guud hadda waa ay bixeen. marka hadda fiiriyo Zahra Xasan Cali waa soo hartay, Cabdiqanina hal mar, Zahra Xasan Calina hal mar, kaliya kulli waa bixeen gibi ahaan. marka 4 iyo 5 ID-gooda waa ay bixeen. saas waxaa loo sameeyaa marka duplicate qiimo soo la laabtay hadduu Excel-ka ku jiro sida ayaa looga tirtiraa. taasna waa qayb kale muhiim ah. haddii tusaale ahaan lagaa dalbaday in column ka mid ah la qariyo xisaabtaada, tusaale ahaan salary oo kale in aad dadka qarisada u baahan tahay, columnkaas hal column kaliya waad qarin kartaa, kaliyaad ku siinaysaa, kabacdi waxaad tagi doontaa home tab. home tab markaad tagtid waxaa kasii tagi doontaa sales group waxaa ka tagaysaa format waxaa kasii tagaysaa feasibility waxaa kasii tagaysaa hide and hide waxaa kasii tagaysaa hide column si aad u qarisid columnkan salary. marka waxaad isku xigsan doonaa nationality iyo phone, kabacdi waxaa leeyahay hide columnkii wuu qarsoon yahay. dabcan marka la fiiriyo qofka Excel-ka yaqaan xisaabaadka, labadan column in ay wax ka qarsan yihiin columnkan dabcan waa la dareemaya. for example waxaa lagu dareemi karaa kaliya labadan line waa lagu fahmi karaa sidoo kale alphabetic order-ka G iyo I waxa u dhaxeeya H baa u dhaxeeysa. marka in xaraf uu maqan yahay saas ku dareemi kartaa inay qarsoon tahay. marka si lagu soo bandhigi karaa saas u dooro, kabacdi home tab waa taagan tahay, format tag, feasibility aad tagaysaa, hide and hide aad ka tagaysaa, kabacdi waxaad leedahay markaad qarinaysa hide waa, markaad soo muujinaysidna waa unhide aad leedahay. halkan oo salary waa kusoo laaban doonaa, salary waa kusoo laabanaya. sidaa ayaad u samayn kartaa si wax aad usoo muujisid waxa kaa qarsoon. sidaas waa sida loo soo bandhigo column-ka qarsoon. marka waxaan fiirin doonaa sida loo soo bandhigo ama loo qariyo rowga. hadda haddaan rabo inaan qariyo Caaisha Afrax rowgeeda warbixinteeda employees-kaas kale inaan qariyo hadda u baahana, waxaan leeyahay home tab tagaya, kabacdi waxaan tagayaa format group waxaan kasii tagaya feasibility hide and hide, waxaan dhihi doonaa marka hide rowga qari. hadda daa fiirino rowga inuu qarsoon yahay, waxaan ku dareemayna 1 2 3 4 waa qarsoon yahay, rowga afraad waa qarsoon yahay. si usoo bandhigtaa dhan dooro, markaad dooratid waxaad tagtaa home tab tag, format group tag, kabacdi feasibility hide and hide rowga qarsoon soo bandhig. marka Caaisha way soo laabanaysaa. saasna waxaa loo sameeyaa in gibi ahaan column-ka qarsoon iyo rowga qarsoon lagu soo bandhigo. waxaa kaloo samayn kartaa in sheet-ka laftirkiisa xisaabta ay kugu qoran tahay in aad soo bandhigi kartid ama aad qarin kartid xisaabaadkeeda. xisaab waxaa laga yaabaa kugu qoran sheet mucayan ah in aad qarisid inaad soo bandhigtid. see loo bandhigaa? hadda sheet-kan oo kale inaan qariyo haddaan rabo suuragal nooma ahan in keligiisa aan qariyo, sababtoo waa inuu sheet kale furan yahay. hadda haddaan tago feasibility hide and hide sheet haddaan rabo suuragal ma aha marka in sheet-kan keligiisa ah, at least waa in feasible uu yahay another sheet. marka sheet kale furaysaa, okay dheh, halkan tag sheet kale soo fur. okay sheet kale abuurnay, marka sheet 1-keena tag, waxaan xisaabtan waa qarin karnaa. marka haddii shirkadaha ay dabagal ku hayaan ay jiraan ama miisaaniyada dhaqaalaha shirkadda control lagu hayo, xisaabaadka Excel-ka sheet-ka waa qarin kartaa. waxaa ka qarin kartaa marka format feasibility hide and hide. marka qaar waxaa jira hay'adaha canshuurta ama hay'adaha dhaqaalaha control ku sameeya in ay shirkadaha soo booqato. marka sidee loo qariyaa marka xisaabaadkeeda? hide sheet alle. hadda markaa sheet-kan sheet 1 oo qarsoon doona, sheet 2 ayaa sii furmi doonta. markaasaan leeyahay oo qarsoon sheet ayada korkiisana waa kusoo bandhigi karaa. marka sheet-ka labaad aan tagaa right click aan leeyahay hide soma unhide aan leeyahay. unhide marka iraa halkan haddaan fiiriyo dabcan sheet 1 qarsoon, unhide sheet 1 aan leeyahay. marka okay iraaho waxa dhici doona u fiirsan. marka halkan sheet 1-kii waa soo laabanaya. saasna waa sida loo sameeyo sheet-ka sida loo sameeyo. haddaan rabo sawir inaan soo geliyo Excel-kayga, sawir inaan background-kii soo geliyo, waxaan tagayaa page layout, waxaan kasii tagayaa page setup, page background aan tagi doonaa, kabacdi work offline aan leeyahay, kadib sawirka meesha uu saaran yahay ayaan soo gelin doonaa. okay sawirkaasaan kale ayaan soo gelin karaa.
sawirkaas oo kale ayaan soo gelin karaa. marka hadaan u baahano oo kale in maxaan kula qoraalkan aan soo muujiyo home tab tagaya farta waxaan ka dhigayaa wide aan ka dhigayaa si xisaabaadkaas ay uga soo muuqdo. marka saas aan samayn karaa. control z hadaa iraho waa sidii noqonaya, control y hadaa iraho sidii soo laabanaya. save page marka loo remove gareeyaa sawirka la soo geliyo waxaa u remove garan kartaa delete background aa leedahay wuu baxayaa. marka fartan laftirkeeda wide waa hadda ma muuqato black aan ka dhigaynaa si ay usoo muuqato. saasna ayadana waa samayn karaa xisaabaadka markii la joogo. xisaabtan oo kale haddaan rabo in aan border geliyo excelka xisaabtan border inaan geliyo haddaan rabo oo table aan u sameeyo waxaan samayn karaa in aan ayada dhan dooranayo. haddaan rabo saa inaan border geliyo ayada dhan aan dooranayo. border waxaa laga wadaa table aa laga wadaa, table ayaa laga wadaa. waxaan sameynaya home tab tagaya font group meesha ka koreystaan taabanaya. haddaan iraa left dhankaaga bidix ayaa border kasoo gala, right dhanka bidix midiga right waxaa kasoo gala border. no border all border aan dhaha. marka border marka table kaas saas uu noqonaya, table camal u sameysana markaa fiirso. marka hore suu ahaa saan u ahaa dooro halkaana no border. marka soo dhici maxaa dhici doona tablekii wixii waa ka baxayaan border la-aan ayuu noqonayaa. sheet cusub inaan furo haddaan rabo laba qaab ku furi karaa. balaskan waa ku furi karaa aan insert sheet inaad ama inaan dhaho halka inta tago home tab inta dhaho insert markaas aan insert sheet aan leeyahay insert sheet cusub soo geli waa sheet ayaa furmaya. marka haddaan sheet cusub furo insert new sheet aan leeyahay sheet 3 ayaa furmaya. halkan magacana ka bedeli karaa right click aan leeyahay name aan leeyahay. marka waxaan leeyahay maaliyadda sheetkan kale ayaan tagi colorkan ka bedeli karaa xataa sheetka right click aan leeyahay tab color guduudan ka dhigaya. markuu xiran yahay colorku qaadanaya. hadduu xiran yahay color uu qaadanaya magac kale ka bedeli kana waxaa leeyahay kiiska liiskan leeyahay liiska musharaxiinta aan leeyahay okay liiska musharaxiinta diiwaangelintooda for example coloraan siinaya taabaan leeyahay blue aan ka dhigi karaa. markuu furan yahay saas waa, markuu xiran yahayna colorkiisu qaadanaya. inaad sheet tiri haddaan rabo right click aan leeyahay delete sheetkaas oo dhan waa tiri karaa. move tab ku leeyahay tiri taa uu baxaya. sidaa waxaa loo yaqaanaa in maxaan ku rahaa sheetkan color mucayan aan siino sidaas waa. marka waa mahadsantihiin. dabcan halkan waa macadka barashada iyo cilad bixinta kombiyuutarada sii kor magacay waa injineer cabdixaan cabdalla. see you in next lesson.